السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عاو وحن إن فيديوغان ugaga jawaabaya in walaashay Shukri Arawelo ama Shukri Alo oo igu soo challenge gareysay qabyaalad challenge in qabyaalad challenge-gan aan sameynay caawa videogan yaran duubayo video aniga ma aan maaragtay inta duubo ma geliyo nadka laakiin challenge-gii soo mariyay waa inaan ka jawaabaa qabyaalad meelaan ka bilaabo baaban garanaynin waan ognahay qabyaalad halka ayna gaarsiisay 25 sano ku soconaa 24 sano iyo ka badan ayaan waxaan ku soo jirnay lugooyada dib u dhaca dhibaatada nacaybka iyo waxyaabaha inoo geysatay qabyaaladu inayan wanaagsaneyn inaan horumar lagu gaarin inayan meel u horseedin ama dad aysan u horseedaynin wax wanaagsan annaga ayaa tusaale u ah Soomaali haddaan nahay heer waxaanu gaarnay qixii aniga Soomaaliya ayaan joogay waxa uga soo qaxneen wax kale ma ahayn waa dagaalka sokeeye qabyaalada taabashada ay dadka taabatay Soomaaliyeed dhan walba waa ay naga saameysay waxa kamid ah annaga waan soo qaxnay bad biri Soomaaliya ay ku soo wada qaxeen inta joogtay wadankana qabyaalad kama ay marnayn dhibaatooyinka u geysatay waanu ognahay inta nooga dhimatay waanu ognahay inta maalin walba ku dhibaatoobaysay waanu ognahay dhalinyaradeenii iyo dhallaankeenii waayeelkeenii meelaha ay ku silacsan yihiin dal iyo dibadba waanu ognahay qofna qabyaalada ilaa qarannimo heerkeena gaarsiisay waanu ognahay dhibaatooyinkeena gaarsiisay qof ahaanna waanu ognahay shakhsiyan ama qof ahaan dhibkeena gaarsiisay walaalayaalow qabyaalada heer waxaanu gaarnay ay noo saameyso qaran iyo qof iyo siyaasad iyo xag guur dhan walba way naga saameysay waxaad arkaysaa haddaan qaran ka hadlo dad dhan oo qaran ah oo la rabo inay qarannimo u shaqeeyaan ama qarannimo ay wax u sameystaan ama wax u wada qabsadaan ama ugu fakaraan oo qabiil ku fakaraya waana laga helay Soomaali waan ognahay heerkan gaarnay waa dib u dhac inteeda la eg waa calool xumo inteeda la eg qof ahaan waxa weeyaan diaspora kale hadda anaga wadamadan dibaddan joogno waxaad arkaysaa dad dhan oo community ama dad dhan oo isu yimid oo meel isugu yimid oo haddii la yiraahdo dan guud ha laga hadlo aan danta guud cid u soo baxaysa oo badan aysan jirin 4 qof isugu imaanayso haddii la yiraahdo qabiil hebel ayaa maanta wax samaysanaya shafka inta isu soo garaacdaan fundraising al sameeyna ama lacag baa loo aroorina haddii la yiraahdo wax naga xoog badan male saa u kala ordeyno mid gabdhaha dhagihii gadda mid lacagtii ayuuto ay ku jirta soo daarisa nin ilmihiisi lacagtu ka qadiyay oo uu meel ku xasaystay uu gad ku ritay soo saara si loo yiraahdo qabiil hebel ba ugu fiican oo ka arag qabyaalada markii loo orday alla maxaa nagu jirta caadifad saa u ordeyno haddaan sidaa ugu shaqaysan lahayn danta guud wallahi meel baan waa hore gaari lahayn energy-ga nagu jira iyo maaragtay xoogga nagu jira marka qabyaalad dadku ka hadlayaan hadduu noogu jiri lahaa qarannimo iyo isjacayl iyo Soomaalinimo waa horeeto 24 sano iyo ka badan naguma soo gaadheen dhibaatadan haysata dhallaankeenana meelaha kuma usulceen waayeelkeenu meelaha kuma usulceen haweenkeenu meelaha kuma yansalceen marka walaalayaalow qof ahaan waxayna gaarsiisay heerka aan wadamadan anagoo joogna oo dhibaatooyinka wadankan cusub oo qofku la qabsanayo iyo afuusan garanaynin badankeen afkeen garanaynin iyo dhaqanka kale aan garanaynin iyo meeshan oo yimaadeen iyo gaalku cunsuryeynaya intaas oo dhib anagoo rabna inaan maaragtay la dhilgareeno ama challenge badan ama wax carqaladan hortaagan wadamadan aan ku noolahay markaan intaan taa u babac dhigi lahayn ayaan qabyaalad u babac dhignaa waa arrin calool xumo ah oo u baahan inaan dib uga fakarno oo aan niraahno war gacmaha is qabsano waxaan joognaa meel dhibaatooyin badan aan ugu nimid dhibaatooyinkaas intaan ka fakari lahayn innaga midda isu keenayno ayaa ka sii lugooyo badan oo qabyaalada ah tan aan wadankan ugu nimid ama dhibaatooyinka u baahan inaan ayaga iska garab siino marka walaalayaalow heerkii siyaasadda naga gashay xafiis qofkii jooga Soomaaliya hadda hadii la yiraahdo kii in adeerkiis ahaa oo aan qualify ahayn
oonan u qalmin shaqada oo aanan garanaynin si loo qabto ayuu wuxuu u siinayaa waa in adeerkay shaqadii isagoo arkaya nin u qalma shaqadii oo wadankii iyo shaqadii iyo xafiiskii soo gelin kara arrinta oo shaqada looga baahan yahay sideeda u qabsan kara u qalma u leh khibrad kaas asagoo arkaya qofkii ayuu wuxuu soo gelinaya in adeerkiis waa calool xumo horumar xageen ku gaaraynaa intaan taas eegayno maxaa kaaga daran in alla intii dhalinyaro ahayd tahriib meelaha ayay ku baaba'een intay isleeyihiin wadankii ka carara haddii aan nahay dad qarannimo ka fakaraya oo qabyaalad aanan ka fakaraynin wadankeena dib ugu dhisan lahayn wadankeena ayaan gacmaha isqabsan lahayn wadamadan aan joogno ayaan iska kaashan lahayn si aan dadkeenii wadankii jooga xataa wax ugu qabanno qof ahaan waxayna gaarsiisay heer aan anagoo marka hore isku sacabtumayna ha aniga may qabyaalad anigu shaqo kuma lihi haddana markii la yiraahdo qabiil hebel baa loo qabanaya dhiig aadan garanayn meel uga yimid iyo xoog aadan garanayn meel uga yimid qofkii waxa arkaysaa meelaha ku jira oo gurbaan ka tumayo anaa reer hebel leh oo fundraisingka qabyaalad loo sameynayo leenka hore kaga jira war qofkii shalay aas lahaydeen war qabiilku ma wanaagsan qabyaaladu ma wanaagsan qabiil waxba dhiba ma leh qof walba qabiil buu leeyahay qabyaaladu ma wanaagsan qofka shalay isku raacdeen oo maanta durbaanka ka tumaya markii qabiilkiisa fundraising loo sameynayo oo laga hadlayo ama anaa reer hebel xabadka u raacaya war goormaanu ka koreynaa oo goormaanu ka gudbaynaa oo arrimaha saytu goormaan ka dhex baxaynaa goormaan horumar gaaraynaa waxaa arkaysaa reer dhan oo gabadh laga soo doonay oo gabadhii ninkii aabaheed ahaa uu ugu diiday ninkii soo doonay muslimka ahaa soomaaliga ahaa maya ma aha landheere ma aha annaga qabiilkeena ka landheeraysan kuwaas maba isguursano war ilaahay ka baqa yaa allah xaggee lagu arkay waxaasoo kaleeto war yaa ku yiri isma guursataan because sabab maxay tahay qabiilkiisa ayaa ka hooseeya leedahay qabiilkaaga war goorma qabiil ka hooseeya maaragtay diintee sheegtay ilaahay wuxuu noo sameeyay shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafu qabiilka ilaaha noo sameeyay inaan isku aqoonsano laakiin inna akramakum cinda allahi atqaakum bay ahayd aayadii qof ilaahay hortiisa sharafka ku leh waa qofka ugu cabsida badan marka goormaa qabyaalada ay qof qabiilkiisa diinteenu ma sheegin war dadka kaliya waxaan nahay isku afka ah oo isku dhaqanka ah oo isku diinta ah oo isku midabka ah xagee laga helaa adduun weynaha war walaalayaalo sidaan isku dhaano war walaalayaalo aanu gacmaha isqabsano oo aanan maaragtay qabyaalada aanu ku ridno meesha loogu talagalay oo ah hog aanu aasno aan isgacmo qabsano is aruursano waxaan challenge gareynayaa anigana qof alla qofkii ajradan fiirsada oo Soomaaliya in uu asaga iska bilaabo annaga aan iska bilowno hal inaan niraahno waa ku daalay caruurteeni dhibaatada maanta haysata iyo kuwii hore dhibka haysata iyo kuwa dhalan doona bal aan ka fakarno mustaqbalkooda war qabyaaladan iska dhigno walaalayaalo aan arrintan iska ilowno ramadaan baan joognaa aan isku soo wada duceyno aan niraahno walaalayaalo kulligay intaan niyadda ku qabanno oon duceysano ilaahow rabbiyow qabyaalada naga tirtir ilaahow niyaddeena nadiifi ilaahow kuwii qarannimo yaa qarannimo kuwii usoo jeesta soomaalinimo islaamnimo kuwaas allah naga dhigo inta qabyaalad niyadda ku haysa u nool allah naga qabto aan duceysano aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan challenge gareynayaa dhammaantiin fadlan inta qof oo aan nominate gareynayana waan soo qori doonaa aad ayaa u mahadsantihiin qofkii arrintan bilaabay challenge-gan baan uga mahad celinayaa ilaahay ka sokow waa mahadsan tahay shukri walaali adna waa mahadsan tahay ilaahay ayaa ii ogolaaday inaan arrintan maanta ka hadlo ilaahu rabbiyow kuwii mar walba adiga dartaa isku raaca oo isku gacan siiya oo soomaalinimo iyo calankaas buluuga ah oo xidigta cad leh u dagaalama oo u dooda codkeenna niyadeenna iyo waxaan qabanaynaba inaan ka dhigno walaaltinimo oo aan qabyaalada dhinac iska dhigno ayaan idinkula dardaarmayaa aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu